نمبر 1 وحيا أبو النبي محمد نمبر 2 كيسا ما تغاني وسير ساق نيوتن نجي فيزيكس نمبر 3 كيسا ما قرنا يسا وعيسى نبي الله عيسى إيشكو يهودية موسى محوكا دقي نبي موسى نمبر كافرتناد بوجره بقول غافة الدنيا الرادين تقوله إيشكو نبي يسوع رأس إسنا وحوكا دقي محي نمبر 40 بكت المامية عيسى النبي عيسى وحكت المامية محي نمبر 3 سؤال بيسوي الدين لمركا تراكوبيا maanta la hayo ee dunidu ay sheegato masiixiyada inta sheegata ka badnayd baa la leeyahay inta sheegata muslimka waay oo ciise number 3 uga dhigay ayaa la weydiiyay maxaad ciise yani wan u geyn weyd waxa uu tilmaamayaa ciise waxa aan wanka u geyn waayay waa hal shay wuxuu leeyahay diinta nabi ciise qaybta akhlaaqiyadka iyo waxa ku saabsan raadaynteeda nabi ciise iska leh ama aqaayada maanta kristanku haysta buu leeyahay polos baa kaga badan maxay ciise marka waa diin aan u qaybinayo buu leeyahay laba qof inay raadaynteeda leeyihiin qaybteeda aqaayada polos baa ah buu leeyahay qofka koowaad ee raadaynta ku leh dee tathliidka ninka ku waday weeyaan saddexdan ilaahay isku ilaaha ninka soo dhaxgaliyay diinta tan weeyaan waa groupka saawgeed buu leeyahay ciise aniga agtayda wuxuu ka yahay maxay number 3 buu tilmaamaya ama buu leeyahay muhammad alayhi salatu wasalaam isagu keligii ayuu haday aqeedo tahay iyo haday akhlaaq tahay iyo haday dawladnimo tahay iyo haday waxba tahay islaamka keligii buu matalaa buu leeyahay keligii ayuu yahay markaan bashariyada oo dhan eega buu leeyahay taariikhdii reer nabi aadam oo dhan markaan eego qofka ugu mudan ee ugu weyn ee raad lihi waa nabi maxamed buu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam ma irhaabi baa ugu raad badnaan lahaa dunida intuu soo maro bise qof la caayo la yidhaahdo waa dumar buu jecel yahay ama caynkan buu sameeyaa ama kan buu samaynayaa ama caynkan samayn kari lahaa ma waxa weeyaan innagaa gabnay taariikhdii islaamiga ahayd markaynu inagu soo bandhigi weynay iyagu inoo soo bandhigeen khuraafaadkoodii aneego أحمد ديدات با كتاب كيسان لا يدهدو والنبي محمد وينيديسا كغا ورمايا وحو تلمامايا جريدة دان تايمز كلا يدها تايم لا يدهدو 15 جولاي 1974 صباح داي بولي أيا وحي كفر كسركة دغاتاي who were history's great leaders liidarrada ugu waaweyn dunida ee taariikhda soo maray waa kuwama dabeetana jariidada inteeda ugu badan waa maqaallo rag la weydiiyay su'aasha ah yaa u mudnaa hogaamiye dunida soo mara dadka la weydiiyay jariidadana weydiisay dad doora bay ahaayeen oo kala nooc ah laakiin dhammaantood jawaabahay bixiyeen midnaba ma ignore garayn buu leeyahay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam mid kasta oo ka warramay dadkii ugu waaweynaaye dunida soo maray ee jariidadu qortay nin kastoo la weydiiyey liiskiisa waa ku jiraa buu leeyahay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam aan qaar ka mid ah soo qaadano william macneill waa mu'arrikh waa taariikhyahan maraykan oo jaamacatu chicago ka tirsan ayaa jariidada maqaal buu ku leeyahay waxa uu leeyahay haddii aynu weynida ku qiimayno qofku inta uu raadeeyey bini aadamka waxa qasab noqonaysa buu yidhi inaynu xusno dadkii bini aadamka ugu raadaynta badnaa nabi ciise iyo buuda iyo muxamed iyo confucius ambiyadan dunida soo martay buu isagu leeyahay diimaha maanta joogay waaweyn ee dunida soo maray ambiyadoodii ala xaddi qowlihi weeyaan soo isagu sheegay ayaa ugu raadayn badan nimanka wax la weydiiyey ee maqaaladan su'aalaha la weydiinaya waxaa ka mid ah nina janan mutaqaacida lieutenant general fariiq buu ahaa mutaqaacid ciidanka maraykana james gaffin la yidhaahdo waxa la weydiiyey yaa ugu mudan qaadadii dunida soo martay kaasi taariikhyahan buu ahaa kana waa askari
waxa dadkan loo soo qaadanaya waa dad viyuga ay wax ka eegayaan ay kala gedisan tahay oo ninka askarigii sibuu dunida u arkaa ninka taariikhyahankiina sibuu u arkaa ninka culumta bini aadamka psychology wax la mid ah ku takhasusayna si kale u arkaya James Gavin waxa la weydiiyey yaa dunida ugu raad badan ee soo maray taariikhda wuxuu yidhi waxaan aniga agtayda waxaan ictibaarinayaa buu yidhi Muhammad iyo Ciise liilanna waan ku dari karaa buu yidhi isagana inuu ka mid yahay dadkii dunida raadeeyey